Sidee dunida uga falcelisay dilka hogaamiyihii ururka Xamaas? Goorma ayaa la aasi doonaa? Maxaa ka dhalan kara oo cawaaqib ah? Haddii aad nagu cusubtiin nagu soo biir oo ka mid noqo saaxiibada inagu xiran si aad halkan uga heshaan warbixino muuqaalaan had iyo jeer halkan aynu ku soo baahino. Waxaa haatan soo baxaya falcelino kala duwan oo ka imaanaya dalal uu ka mid yahay Ruushka kadib dilkii caasimadda Iiraan lagu geystay hogaamiyihii ururka Xamaas Ismaaciil Haniyeh. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Ruushka ayaa dilka Haniyeh ku tilmaamtay dil siyaasadeed oo gebi ahaanba aan la aqbali karin, sida ay sheegtay warbaahinta dowladda ee RIA. Wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda ee dalkaasi Mikhail ayaa waxa uu sheegay in dhimashada hogaamiyaha Xamaas ay horseedi doonto xiisad hor leh. Dhanka kale, wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Turkiga oo iyana bayaan soo saartay ayaa cambaareysay waxayna ku tilmaamtay dil ceeb ah oo ka dhacay Tehran, iyada oo bayaanka ay soo saartayna lagu baahiyay wakaaladda wararka Reuters. Waxay ku sheegtay dowladda Turkiga in dilka loo geystay Ismaaciil looga gol leeyahay in lagu faafiyo dagaalka qasa laguna gaarsiiyo heer gobol. Madaxweynaha Falastiin Maxamuud Cabbaas oo dhankiisa ka falceliyay dilka hogaamiyihii ururka Xamaas waxa uu dhankiisa ku tilmaamay dilka Ismaaciil Haniyeh fal fuleynimo ah oo halis ah. Waxa uu sidoo kale ugu baaqay Falastiin in ay midoobaan oo ay isdejiyaan una adkeystaan wajiyada gumaysiga Israa'iil, sida lagu baahiyay bayaan ka soo baxay madaxtooyada Falastiin isla markaana lagu daabacay wakaaladda wararka ee Wafa. Dilka hogaamiyihii ugu muhiimsanaa ee Xamaas Ismaaciil Haniyeh ayaa gobolka qarka u saaraya dagaal loo dhan yahay si ka duwan sidii hore, sida uu u sheegay warbaahinta falanqeeye Nader Hashimi oo ah professor arrimaha daraasaadka bariga dhexe ka dhiga jaamacadda Georgetown la yiraahdo. Tani waa arrin weyn ayuu yiri. Waxaan u maleynayaa in sidoo kale ay saameyn doonto xiisadda Lubnaan sababtoo ah dhowr saacadood ka hor Israa'iil waxa ay isku dayday in ay disho hogaamiye sare oo ka tirsan Xisbullah oo ku sugan koonfurta Beirut. Waxa uu sheegay in markii hore mara-awaal ay ahayd in Iiraan iyo Xisbullah aysan daneyneynin xiisadda sii kordhaysa, laakiin dilka Haniyeh ayaa kor u qaadaya xiisaddaasi, ayaa uu raaciyay hadalkiisa. Dowladda Iiraan ayaa hadda u muuqata in ay haysato tallaabo kasta oo sare ay ugu qaadi karto khilaaf ka taagan dhinaca gobolka. Waxa uu qorshuhu yahay in maalinta Jimcaha ee inagu soo aadan Allaha u naxariistay Ismaaciil Haniyeh lagu aaso dalka Qatar, gaar ahaan magaalada Dooxa. Masjid halkaa ku yaala ayaa la iclaamiyay in lagula tukan doono salaada janaasada, iyadoo hogaamiyaasha islaamkana ay ka qayb gali doonaan janaasadiisa. Allah u naxariistay Ismaaciil, qoyskiisa waxa ay gebi ahaanba ku geeriyoodeen duqeymo ka dhacay Falastiin oo kol hore ay Yuhuuddu geysteen.